السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعبد الناصر oo maantana sidii caadada inoo ahayd idinla socodsiin doona ama idin soo gudbin doona oo idinla wadaagi doona barnaamijyadeennii taxanaha ahaa ee aynu ku kulmi jirnay. waxaad igala socotaan barta YouTube-ka aan ku leeyahay ee la yiraahdo Nuuriye YouTube channel. ku soo dhawaada dhammaantiin. waxaan idin hayaa maanta sheeko yar oo kooban oo aan u bixiyay magaceeda yaa yiri Soomaalidu romantic ma aha. yaa yiri Soomaalidu ama bulshada Soomaaliyeed dad jacaylka wax ka yaqaan ma aha. yaa aaminsan fikradda ah in bulshada Soomaaliyeed ay tahay bulsho aan haba yaraatee jacaylka waxba ka aqoon. anigu shakhsi ahaan waxaan aaminsanahay bulshada Soomaaliyeed inay yihiin bulsho jacaylka wax ka taqaana oo wax badan ka fahamsan, hase ahaatee bulsho xishood badan oo wax badan dhowra oo wax badan aan dibadda keenin ay yihiin. maadaama ay yihiin bulsho muslina waxay taasi qasbaysaa in waxyaabo fara badan aanay dibadda u soo saarin. had iyo jeer marka laga hadlayo jacaylka dadyowga dunida guudkeeda ku nool cid aan ama qaarad aan qoomiyad aan jacayl lahayn oo aan jacaylka wax ka aqoonin ma jirto, laakiin waa lagu kala duwan yahay. wadamadan reer galbeedka ee aanu joogno marka aad aragto waxaad arkaysaa nin iyo gabadh isqaba ama nin iyo gabadh saaxiiba. iyaga saaxiibku wuxuu ugu jiraa halkii isqabiddu waa ugu jiraaba, oo labada qof ama waa isqabaan ama waa saaxiib. 30 sannadood 20 sano 10 sano 40 sano ayay saaxiib ahaanayaan. waa shuruucdooda wax ka mid ah. waxaad arkaysaa markaa nin iyo gabadh isqaba ama nin iyo gabadh saaxiiba oo suuqa dhexdiisa, tareenka dhexdiisa, baska dhexdiisa, gaariga dhexdiisa isku dhunkanaya. yacni dadka Soomaaliyeed kama suurtowdo, suurtagal ma aha hadday isqabaan in ay isku dhunkadaan meelaha noocaas oo kale ah ee public ah iyaga oo gurigooda jooga mooyaane. maxaa u diidaya? waxa inoo diidaya dhaqankeena iyo diinteena wanaagsan ayaa aan inoo saamaxaynin arrimaha noocaas oo kale ah. waxaanaynu u naqaanaa dhaqan xumo. waa sax taasi, run weeye. hase ahaatee Soomaalidu lama odhan karo waa bulsho aan jacaylka waxba ka aqoon. cilmi boodhari baaba ka dhashay Soomaalida. cilmi boodhari oo la garanayaa waan filayaa aabbihii jacaylka Soomaaliyeed. cilmi boodhari nin abwaana oo waxa weeye taariikhdu sida ay warinayso ninkii wuxuu ahaa qof Soomaaliya oo uu jacayl ku dhaco. raggii wuxuu ka mid ahaa dee ninkii kaalinta koobaad ku jira wey cilmi boodhari. ilaahay naxariistii janno ee ha ka waraabiye. markaa Soomaalidu cilmi boodhari baabay leeyihiin oo halka carabtu ay qays iyo layla ka leeyihiin, innaguna cilmi iyo hodan baynu leenahay. cilmi boodhari iyo hodan cabdulla walanwal ayaynu leenahay oo ahaa la yidhaahdo wuxuu ahaa cilmi aabbihii jacaylka Soomaalida ayuu ahaa, inkasta oo aanu ku guulaysanin jacaylkiisii hodan cabdulla walanwal, inkasta oo aanu ku guulaysanin. bal markaa waxaynu eegaynaa maanta oo aan doonayaa insha allahu tacaala inaan idinla wadaago gabadh Soomaaliyeed oo ku nool qurbaha ayaa waxa ay sheeka ama haasaawe uu dhex maray oo xidhiidh uu dhex maray wiil jooga Soomaaliya. sheeka ayaa dhex martay, haasaawe guur baa dhex maray. haasaawihii mudduu socday, arrimaha waa la falanqeeyey, wax badan baa la lafaguray. sheeko dheer baa muddo dheer baa ay sheekaysanayeen, si fiican bay isu barteen. labadii qof waa isku qanceen, midba midkii kale ayuu raalli ka noqday, kadibna waa ay is-aamineen. sheekadu markay halkaa marayso ee ay labadii qof noqdeen laba qof oo si fiican isu bartay oo qofba qofka kale wuxuu gala iyo wuxuu gudo uu yahay qof qiyaasi kara, ayaa waxa dhacay. waxaa la yidhaahdaa horta inta aanan halkaa u gelin, had iyo jeer waxaa la yidhaahdaa jacaylku laba shay unbuu ka dhashaa. jacayl haddaad maqasho waxaa la yidhi jacaylku ama waa sheeko ama waa shaahid. qof lagaaga sheekeeyey, inan qurux badan oo lagaaga sheekeeyey ama wiil qurux badan oo lagaaga sheekeeyey ayuu ninku jeclaan karaa ama ay gabadhu jeclaan kartaa. weliba aalaaba marka bulshada Soomaaliyeed laga hadlayo, had iyo jeer jacaylka soo bandhigidiisa 99% waxa u badan ragga. waayo dumarku iyaga oo doonayo oo waxaa jecel ayaanay haddana muujin.
oo waynaga inaguna nidhaahna haddaynu nahay Soomaali arraweelaa la ballantayoo waxay ku tiri waxa diidaysaana doona waxa doonaysaana diida formuladaasay haystaan baa la yiraahdaa qaacidada ayay haystaan baynu nidhaahnaa haddaynu nahay ragga markaynu haweenka hoos u dhigayno oo yani waxa weeye dumarku iyaga oo wixii doonaya ayaanay jeclayn in uu ninku ka dareemo ama ay muujiyaan haddaba waxa la yiri gabadha aan ka soo sheekeeyay iyo wiilka uu xiriirku dhex maray xiriirka ama haasaawaha guurku uu dhex maray markii hawlahoodii ay gabagaba ku dhow yihiin ayaa gabadhii wiilkii waxay u soo dirtay maalin maalmaha kamida waxay u soo dirtay fariin message bay u soo dirtay waraaq bay u soo dirtay oo ay hawada u soo marisay waxay tiri haddii aad riyooto qarowga ii soo dir haddaad riyoonaysa hadda saacadda aan hadda kuu soo diray message-ka ama warqadda haddii aad riyoonaysa qarowga laftiisa ii soo dir haddaad foolasha qaawisay oo aad qoslayso qosolka ii soo dir laftiisa haddii aad wax cunayso qamta iyo qaniinyada cuntada ii soo dir haddaad wax cunayso qamta iyo qaniinyada iyo raamsiga cuntada ii soo dir bay tiri haddaad wax cabbayso waxaad doontaba cabo ama shaah cab ama kaafe cab ama caana cab ama sharaab cab waxaad doontaba cabo haddii aad wax cabbayso waxaad ii soo dirtaabay tiri fiikiska bunka iyo qaxwaha aad cabbaysa ii soo dir bay tiri anigana waxa kaloo tiri ay tiri haddii aad ooyeyso aad murugaysan tahay haddii aad ooyeyso ilini kaa da'ayso oo aad murugaysan tahay anigana waxaad ii soo dirtaa qoyaanka ilmada iyo qamuunyada ii soo dir bay tiri haddaad ooyeyso qoyaanka ilmada iyo qamuunyada anigana ii soo dir waxay ku dartay gabadhaasi oo ay hadalkeedii ama warqadeedii message-keedii ama fariintii ay u gudbinaysay gacaliyaheeda waxay ku soo gabagabaysay qalbigaad ku dhigantoo kuma dhaafi karayee qalalaasihiibaa ina kala fogeeyo ninba meel ku oodee qorshahaagii fiisaha waa horaan diyaarshe qalbigaaga taa geli qarashkana anaa qaba maxay tiri qalbigaaga taa geli qarashkana anaa qaba bulshada Soomaaliyeed waa kuwa sidaa yani jacaylka gabigiisiiba iyo romantigii la sheegayayba waxay tiri xaalad kastoo aad ku jirto message ahaan ama fariin ahaan igu soo dir haddaad wax cunayso qamta iyo qaniyada ii soo dir haddaad riyoonayso qarowga iyo riyada ii soo dir haddaad muxuu ahaa qoslayso qosolka iyo ii soo dir muxuu ahaaye iyo qahqahdaada haddii aad xaalad kasta oo aad ku jirta bay tiri iyada oo fariina anigana ii soo diro ila wadaag yani waa wax runtii aniga arrintaasi aad iyo aad warqadaasi aad iyo aad bay ii soo jiidatay ay gabadha Soomaaliyeed gacaliyaheeda u dirtay waxaan markaa aqoonsaday oo shaki la'aan aan isqanciyay in bulshada Soomaaliyeed ay yihiin bulsho romantiga wax badan ka yaqaana oo jacaylka wax badan ka fahamsan laakiin aanay u dhaqmin sida bulshooyinka kale ee inala midka ah ama bulshooyinka inaga diinta duwani qaabka ay u dhaqmaan uma dhaqmi karno laba qodob baana inoo diidaya oo waxa inoo diidaya dhaqankeena iyo diinteena wanaagsan baa inoo diidaya in aynu qaabkaas oo kale aynu u dhaqanno oo aynu anshuxumo ku samayno suuqyada dhexdooda ama meelaha publiga ah ee dadku isugu yimaadaan ama social media dhexdiisaba inkasta oo waayadan dambe aad moodo arrinta social media inay tahay arrin inagu soo korodhay oo wax fara badan uu isbedelay oo aad arkaysa dad fara badan oo waaweyn iyo yaryar bale oo si aan habboonayn oo maxaan ku dhahaa taban u isticmaalaya ama u adeegsanaya baraha bulshada ama social media mareegaha lagu kulmo dad si qaldan u adeegsanaya oo si qaldan uga faa'iideysanaya iyaga oo macaash doona ama faa'iido doona taana waxaan leeyahay ha laga waantoobo inagu bulshada Soomaaliyeed haddii aynu nahay marka la arko qof Soomaaliyeed oo si xun wax u sheegaya ama si xun wax u tilmaamaya ama dhaqan xun sameynaya taasi waxa ay ka warbixinaysaa nooca ay tahay bulshada Soomaaliyeed ogow qof kastaba marka aad ka hadlayso social media ama marka aad wax ku soo bandhigayso social media waxa doontaba soo bandhigo wax wanaagsan soo gudbi ayaanu ka codsanayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن دنبا أو حيسة ما أنت هلكا هاي نوفر إن شاء الله.